aan khadka ka iibsaday lacagta meel baanu kala dhiganay waxa dhacday Addis-Ababa ii keenay lacag 2500 iga sii hormariyay Talyaaniga uu keenayay wiilkii Talyaaniga markuu ii keenay lacagta inta shaqaysanay Ilaahin baa ogaa family ma siinin aabay ma siin hooyay ma siin xoogeygii buu ahaa 28 jir baan ahaa intaasaan ku guurbeelay ku gayaan beelay lacagtaan ku dhoofayna shaqaysanayay waxa dhacday halkan iyo Addis-Ababa imday inankii baa soo qaaday inankii markuu soo qaaday wuxuu keenay Talyaaniga lacagtiina waan u shubay waan siiyay wiilkii markaa wuxuu igu yiri ilaa halkan iyo waxaan ku geynayaa Yurubta kala Belgiumka dhulkan ku geynayaa waxa dhacday wiilkii inaan bil iyo bar aan joogay meeshii Talyaaniga aan fadhiyay aan waqti iska qaadanayay lay dalxiis keenayay halkan iyo dalxiis iyo canjeer xabashi adduunyaha habeenkan daba wareegi jirnay wiilkii waan isu shukaansanay ilaa lacagtayda aniga isku kaydarsan deetana waxa dhacday ilaahay baan leenahay waxa dhacday raga qaar baa iimaala waxa dhacday inankii inaan isu shukaansanay lacagtu iga qaatay inay ahay 13,000 ilaa 14,000 oo dollar wiilkii baan isu shukaansanay lacagtaydii wuxuu ku soo qaadayaa markaa gabadh uu qabay wiil buu ugu iibiyay marka wiilku ugu iibiyo lacag jaban buu kaga iibiyeeyo ilaa 12,000 naagti waa loo soo wadaa anigana de wiilkii lacagtu iga qaatay oo waan soo shukaasanay 28 jirna waan hayo de qeyrkii weedha dhalayna way guursadeen habli aan asxaabta ahayn wad isku tumato waxba dirada dareemaysaa waxba dareemayaa shaytaankii waa wax xuduudinaya waxa weeyaan marka qaarna waxba iska sawirma adu sawirkii baan ka dhabeeyay inankii waan mehersaday 13,000 dollar uu ka qaatay soo hadan ku keeno 13,000 ilaa 14,000 dollar biga qaata Talyaaniga 13,000 iyo dhabankiiba wad isugu dartay yaabaya adigu dhabanayga muu bixinin ninkan iyo anagu u baas shukaansano iskuulsan dhabanka waxaan ka wadaa dumarnimadaada baad ugu dartay soo maaha dhabankaygi baad ka hadlaysaaye geenyadeedii macalaa u kala goostay dhageyso adduunka dheemankaaga iyo xoolahaaga la isku ka darsada walahi anu dhimashaan ka xigaaba dumar islaaliya ninkaas nasiib badnaa ninkeenan bartaasaan ka booday oo wiilkii waan ismeersanay bahal hotel aan degay halkii baan halkii baa dhug waxa dhacday inaan aan walaco la isoo diro maxaa babiye dhugile bentel garaday ku soco hayga hesho ku soco malay maqla ku soco waxa bug dhugile raadin okay call by tagale halkii baan bamka iyo bentel garaday boodaba oo taa boodage أنا أدقي ومعلمس سوق ولا لا أنا أدقي ومعلمس قف هو قرنتي سوق أنا أدقي هاي نها قف قصة هيوي هاي ماركي لك قران سوق قرنتي واحد قصة هيا ما كورمي كرتابا كلها بيتي وكورمي كرام كسوق قبا dhageyso maxamed oo call bay soo galay saacadaha la isma soo wacday ilaahay ka baqa waxa bumi yiri madax dad baa soo socday kowde halkii baa waxa weeyaan waxay tiraan hawshii gabagabeeyay uur baan soo qaaday 2 bilood aan oo ah way soo diray halkan iyo waxaan imid Jarmalka ilmihii baan ku dhalay uuna iga dambeeyay wiilku soo diray bay tiri wiilku markaa waa dadka wax dirdiru ahaa mukhallas buu ahaa wuu soo diray wiilkii waxa ku tiri indhaha isku soo saarnay jacaylkii adduunka muxubad iyo galgacalkii waxa ku leedahay romantic adduunka wareer daadu waxa ku leedahay walciinta uurka lahaa habeen walba waan riyoon jiray maxaa ku riyoon jirtay jacayladii adduunyada aan isla saamarnay habeenadii wanaagsanaa wiilka jacayl xoogan u soo qaaday waa gagabsan yahay soo dadka walac lama gagabaan anu jacayl baan la gagabsanahay oo diyaaradan jiiraya 8 mal ugu soo taas 8 mal ugu guursaday waxa weeyaan daadina malaha way naga daba timid garan mayno deetana martaan ka baxay 8 waaba joobane waxa weeyaan biyahan tufaya maxaa qaldan micnaha 8 waan yarahay waliye waad isku tumatay
ها bartanaan ka boodayo gabar yar oo qurux badan oo jacayl iyo muxubiye galgacal lagu dhalay yaa jah laga soo siiyay haye markaas inta aan markaanu eego alla waa cabdi alla waa axmed alla waa maad aragtay inankii subaga ahaa alla waa indha deeq saanu hayay haye oo maxamed oo aan gagabsanaa ayaa waxa dhacday inankii ilanshow naagti buu keenay ninkii baana u keenay ninkii markuu u keenay ninkii ilmuu dhalay ninkani ana ma ogeyn mana wareysaninoo iskama wareysanina wax wada garan maayo ee markaan maad aragtay xabadda yar soo tuurun bay kala garashadii igu timidayoo aan isiri waa kanoo dee malaa xabad baad soo tuurtay ee ninka bal wuxuu yahay wareysa ma markaad xabad dhashad aqliyeysatay ba haye wallahi waad garatay xabaddaa markaan dhab ka soo siiyo ma waxaan isiri ba kala garashadii imika kugu soo luntay waxaan weeyaan waa shaaxii dhafoorkaan saaray haye si toosa waxa dhacday wiilkiinu jarmalkayga daba yimiday haye waaba nin 4 caruur loo hayo haye naag buu keensaday hortay mayana iimuu sheegin wuu soo baxayay halkan uu imiday markuu jarmalka imiday waa waxa dhacday show magaalo iyo dhow la soo dajiyay ninkano haye isagiya naagtiisiiba haye halkiisaan iskaga fadhiyay ee waxaan ku telefoonka iga soo waco WhatsApp-ka iga soo waco een halka iskala hadalno WhatsApp-ka iga soo waco maxamed oo halkiis aan waxaan ku iskala sheekaysana marmar ayaa waxa dhacday inankii maalin maalmaha kamid ah iyo wuxuu waan imaday waxaan imiday Jarmal haye halkan aan ka boodayo halkan aan orday bahal Suudaan soo iibiyay meel carabo agteedan bahal kabo isaga ka waaweyn soo gaday halkan aan ka baxayo waxaan ku Soomaaligan tagayo macawistii adduunka waan iskharash gareeyay lacagtii sanadka la siinayay qayb baan meel ku riday haye wad urin jirtay ha lacagtii baan bartan ka boodo aroosad baaban ahayd hadda iyo kow waxaan ahayd naag umul baxday imeed sanad gaadhay oo waxaan ku leeyahay xagaroonaysa oo sanka ka hadlayso hadday indhista dheeman indhisaysa marka hadday tiraado odagina baryahan aanay arag sida ay u jirto halkan aan ka boodayo waxaan tagay dukaankii Soomaaliga oo waan soo kharash gareeyay waan soo dhaqayo waan isna nadiifiyo hafo 2 qoloo la isiiyay baan kala boob waxaan ku aan aroos ka dhigayo inankii adresskayga hafka siiyay alla macaan badana haye hafiya balo baby adresskayga waa kaase iga soo gaad amal alla khalaq waa kano anoo yaaban oo fajacsan oo waxaan ku leeyahay halkan ka soo baxayo in ayaa maalin maalmaha kamida wiilba markaa caawin jiray oo aad u wanaagsan haye markaa wiilkaas ilaa dhalmadaydiiba war ka hayaayo waa inaan aad u ilaalin jiray oo meesha iskugu imano Soomaali ahaa wiilkani markaa haddaan sawirkiisa tusilaa u garan lahaa ee sawirkii odaygayga maba tusinba haye marka way gura gabadhaadu iyo eegta waxaan dhahdaa alla waa beheedo halka taag waa beheed haddii aragtay haye inaan kan show saaxiib bay yihiin oo u fahansan yahay oo garanayaayo halkan haddaan imika sawirkiisa tusoo u garanayaayo wuxuu odhanayaa de ninkan waxaa ka qaldan gabadhan aan ilmo adeerkan ahayn waliba isku qabiilkan uu qabaaye halkeebaad ka heesaysaa halkan aan ka boodayo ninkiiba ay imiday ma tusin naagaha waxaan ahaa markaa inta badan waswaaska iyo shikiga qaba oo sidaa dee danteed garad iska maseerka badan leh waxaa lagala baxaa bilow maxay sidan ma ujma kalsoonida ay ku yareed waa laga yaabaa ma garan karo bartanaan ka boodayo inankii baan waxaan ku walaalo macaanow in baryahan uma baahni caawimaad insha Allah markaan caawimaad u baahdaan ka soo wacanaya wabad qarsatayba ha xiriirkii dadka aan la lahaay oo dhan baan jaray bishaas uu ii soo socday bishaas waan isdhaqayay anaa iswadwaday aroos baan galay waan soo xineeyay maalin hadaba maalmin kamida oon magaalada inantaydu ku lahayd ballan oon dhakhtar geeyay ayaa waxaan arkay dhakhtarkii ku dhex arkay ninkii iyo caruurtii dhakhtarkii jooga horta waad naga soo boostantay garad bishii maad soo dhamaysatay adiga qarsanaysa bishii ma soo dhamaysanin soonigii bishii ku jiro oo wali aan sugayo oo igu bishaasaan imanayaayo aan wali ismeermeerayo aan isdhaqayo allah wali ma gaarin ba wali ma gaarine in xaajigii uu soo socdaa aniguna dawanigan gacanta isku haya ee isla wixii ka dayacan halkan kala toosidaan hayo haye
bartanaan ka boodayo waa kaase inankii inantaydu balan bay lahayd balantii baan geynay show inantaydu dhakhtarka ay balanta ku leedahay ilmihiisaaba balan ku leh nabi rasuul haye waa taqraaraatay gabadh baa la wataa 4 caruur la wataa 4 caruur waa 4 waaweyn oo iswalacag yaacayo oo ilaahay baan ku dhaartay haddaan maanta naagta isqabsano 4 dhinac iga dilaya ma fahantay haye halkan aan ka baxayo inankii markaan arkay waariyaahe horta uu isdhiga tiray dhigaha ayuu istiray inanka waa kan halkan baabu naagtiisaa tira war maxaa kugu dhacay war cabdi war bal caadi iska dhig macaadi isku dhiga tiray ba naagtiisi baa kula soo diga caadi ah maxaa qaldan haye deetana waxa dhacday in ninkii kalarka ku dhago ninka maxaad isku tiinaa ninka waa ninkayga ka foqootay ugu tiri maxaa ka qaldan waa kidi dhex marayba ninkan waa ninkayga naabal ka foq halkee baad haysatay alla wanaagsan marka la isku qabsado wanaagsan deetana waa furna anigana uu qabaa oo ilmahan iga dhalay maxaa ka qaldan haye waa kiiri ilmaba kama badalin ba ilmay ka shaqeyn saxay tahay ilmana kama dhalin naagtana ma qababa waaba lagu dafiray ba waaba lay dafiray ba ismaadmarka waran ya ismaadmarka ay ka waraysan ismaadmarka adaa ka sheekeynay ilmaha iga dhanaa waa la dafiray ma fadhi baa yaala haye wuxuu yiri ma badalin ilmahan kama dhalin ma qabo wakaas naagtiisi waa ta maqashay tirnaya wax ma ku sheega ninkayga been ha ka sheegin nabadgel ka fuq haye boolis baa ma aragtay inaan wacada maxaan shir adigoo luuqadna ma taqaan kii ku turjumayna iska galaafatay muso afkaaga qabo gurigaaga tag bartanaan ka boodayo waxaan tagay gurigayga anoo ooyaya inaan tareen raacay inaan luku tagay inaan bas raacay inaan taksi raacay horta maan kala garanay maalintaas macala waxaan cunay maan garanay haye gurigii baan tagayo horta waan seexday saan u ooyay baan gamay macala ilmahayga cunto ma siin waan gartay waa kano telefoonkii baa lay baloogay meel kasta waa layga baloogay meel kasta waa layga xidhay waxaa laygu yidhi walaal macaan ma haysataa caddayn inaan ilmahaan ku dhalaya haye waddanka single mother baan ku yimid oo dana uur la nimdo ninkuu iga dambeeyey aabihii ilmaha waan qoray magaciisa laakiin magaca aan qoray dee muu sheegin magac kaluu sheegtay haye magac kale kuu sheegtay adiga magaciida aniga magacuu igu soo qaaday buu igu mehersaday haye laakiin dee magacan uu waddankan iskaga dhiibay gooni buu ahaa gartay waa kanoo ninkii idafiray ilmihii igu dafiray bartanaan ka booday waan ooyey wax cidna iima maqna ceel iima qodna yaabay fajacay ilmahayga sanad buu jiraa waa aniga halkana oo inamadii meeshii la joogay talyaanigan wacan ku dhado war meherkaygi waad joogteenee de maxaa xala war wax sheegaa tiri waxay ugu dhaheen bada anagu waxaan moodinay inaad inagu go-aan ku gaadhay de inaad ninka naagta la guursato haye waddankan jarmalkana anu walaahi waan joogaayo anigayga danteed garad waan joogaayo waxaan dee sharci qofka imaha haddaanad aabihii ugu horeynta aanad ku qorin dee ciddo dhiigiskama kaa qaadayso ma odhanayso qofkan dhiiggaa laga qaado waddanada kale la mid maaha waxa la idhaha faadar shaafti iyo wax meher la idhaahdo deeta waxa dhacday ninka haba igu dafira ilmihiiye bartanaan ka boodayo inamadii baan waco inamada xigudhe inaan waxaan qorshahan inigu gasheen baaban moodayna ood inigu ku heshiiseen naagta isagoo qaba haye waa kano dafiraadii aniga furniinkii dafiraadana igaga daran haye waa aniga inan wacayo inantii waata igu tirnaa walaalo de uu qabayay maanad ogeyn oo maxaad iigu sheegi weydeen oo adaaba ku galay ma indha la-aan maan dhega la-aan waan garan waayay waxay ku dhacay haye hadal inaan kugu daalinine sidii markay ahayd muddo 4 bilood 5 bilood ka soo wareegtay jawigayga sax ma ahayn waan gartay familkaygiina haddaan wacay dee familkaygii iyo familkiisa kulmeen waxay dhaheen anagu inay is ogaayeen baan moodaynay ma fahamtay haye aniga waxa igaga daran ilmahaygii aan ku tashanayay markuu imaado inaan ku qoro aan ku tashanayay inuu adresskayga sheegto oon ku tashanayay ilmahayga aabihii waa kan inaan idhaahdo inuu maanta naag wato waddanka dagooniiskaga soo dhiibay haye waxa kaloo iga kasii daran inuu guri naagta maba qabina way sheeganaysaa waa beente maba taqaanaba halkeebay haysatay yay tahay ay naagtina aamintay
haye bas way deeta waxaa dhacday inaan hadal kugu daalinine gabadhii inaan waco oon raadsaday naagtiisii 5 bilood ka bacdi oon inta jawigaygu saxsanayn oo maxaa weydiinaysaa naagta saad maxaa weydiinaysaa naagta waxaan weydiinayaa de inaan ninkan ilmaha iga dhalay oo qabay inaan u sheego oo dadkii markhaatiyadii halkaa la joogay inaan u soo xidhiidhiyo haye waad isbaraxaysaa adigu naagtu way igu indha adeegtay waxay igu tiri nayaxan kuu sheegaa ninkay naagtu doonuu guursan karaa waa xor imikii haatana uu ku diiday kuma rabuu kuri ilmahana kaama dhalin buu kurada wixii kaa dhala raadso ama isneersada ama isla seexda ama inagay nee taalaaye inanay ammaanka loogu dadaal haye deeta waxaa dhacday intaan bartan ka booday baan hooyadii la hadlay hooyada waxay ku tiri naxan kuu sheegaa haa maalintaad guursaysa soo kulama telinin haa aan waxaan kuu geystay inaad meesha shaqaysato ood aniga ay anfacdo inaan nin guursta kumaangin adaa iskaga dhacaye adkayso ilmahaaga korso hooyaa tahay haye ilmahaaga korso ninkana ka hadha ammaanka loogu dadaal talaa kugu ciirtay talaa igu ciirta haye hadal inaan kugu daaline qadar baa kugu nuukiyo talaa kugu ciirtay haye ku soco waxaa dhacday inaan afaarihiisi ka baxo inaan sanad la hadli waayo magaalo agteedu degan yahay inaan wici waayo inaan anigu raadsan waayo inaan aniga fasaxaad qaatay iska furay wax bartay neers aan diyaariyey aan anigu noloshaydii dib ugu soo jeestay haye deetana ilmahaygu ii weynaa halkaa dantaga marta ii joog ninkii waa ku dafiray ilmihii waa kugu dafiray ma ku furay ilmihii baad ka hadlaysaa anigii macalaa xidhmaba qababa warqadna ma haysid warqadna ma haysto caddayn oo qabo 13,000 iyo naftaadii baa ku maqan ilmihiina waa lagugu dafiray marka waxay noqotay inaad noloshaada dhaqato oo dib isku soo habayso de anigii ninna ma haysto lacagna ma haysto ilmaha aabihiina ma haysto maxaa qaldan yurubna waad joogtaa keli baad ku tahay yurubna keli baan ku ahay dhulku waa kugu soo yaraaday kabacdi maxaad samaysay inamada magaalada degan iyo gobolkii la degan oo dhan waxay ogyihiin in la iqabo waa la iqabaabaan ku odhan jiray suuq waa kaa xidhmay haddii baad jeclaysan lahayd mar kale waxaas waa dhib kastee 20 jirka weeyaane waar hore iska guursada hablow haye 28 jirka ma waa waaye arag la'aanta ku soco waanu yarnahay weliye maxaad noo weyneynaysaa waanu yarnahay 28 jir waa waaye arag waxa weeyaan maxamed oo da'deeda ay nabadgeli waxa weeyaan firi ciyaalkii 9 ka dhashay 95kii haye deetana markaasaa waxaa dhacday halkanaan ka booday oo inamadii cidii la hadlaysa cidii caawinaysa oo naagta la qabo cidi ma caawiso waa la qabaa waa marwe oo waa laga dambeeya waa laga xishoodaa war maxamed waaba la soo galay suuq awlaad waa leeyahay deeta markaas waxaa dhacday inaan halkan ka boodo oo ani fasaxaad qaato oo ninkii iska furo nolosheedii anigoo nafteedii anfaco nina aamini waayo nina la sheekaysan waayo cidna la hadli waayo oon sidii kaga hadho aan naftayda ku mashquulo nairs barto oo nimahayga 5 sano ii gaadho haye aan 4 sano laymana qabin laymana furin haye de halkan aan ka booday oo de imahayga imka waan karsaday hadda waxay taagan tahay nantii sug aan ma qabtay sug haye mudgal inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun 13,000 بكرة ما لونش مسائل إنما ذي إنه معاه بوسكم ولا الأم أملا الصورة أم كسو قاعدة شكلها هو هيدا ما تو كسو قاعدة عليها أمه والله ممكن إن الدجارة مش عارف ولا لا إحنا بحار يا طيب بدل أنا هالسن أوكي والله إيه صار هاي أنا وانتوا لو ساعة ما نسيتوا 6 ساعات ما نسيتوا إن شاء الله diyaar waa soo laabanaa because dumarkan dhahay waa la guursadatayda ka xanuun badan ma fahanti naaga gogosheeda lala guursan lama guursan naaga gogosheeda lagu guursan mogtaa bismillaahir rahmaanir rahiim gogosheeda la isku yimid bismillaahir rahmaanir rahiim dadkan waa iska hadlayaan ma fahanti naag intii lala guursado banaanka lagu guursaday naag ma aha ma fahanti wali waa lagu jecel yahay
خلاص إيسا لا أمي إيسا لا دبيريور تبان كسي مركا الله مركا تساو سو لابتو شيكاس انترست بيغو تادا و هورينا إن شاء الله إن شاء الله وصل لعونا هاي إسلامات تقول سو لابتو مسوقت كان سو لابتو إنسان ها ساعد ويدين بدك إيدك تبا حداد ولا سي جوجتو وقت سو لابتو سي سوقر كوشي ولا اسكو حقي با تنت قرده كمي بل انت تقرا soo noqonayso shaashada garaaca شاشة ولا البقرة قارسية ستيك من لوغاري لا نسكو waxa socota شير cadada ee شير تلا بقول لو waxba قارسية inagama dhinee intaan ku joogno iyo inta sheer garaysi shaqaysku ma laha دمرو أنا كوي أبان فديا والكيلية برتان كوي أبان فديا وما صورتي شكلها الناس سكوير قبطوا وما صورتي نوع عيتاي نوع عود عيسو شكلها أمك هذيسي وما صورتي بقى ilaa imsadaad soo noqonaysaa حتى نكسر الله إن شاء الله هي أم أنا سوى كسوة هذا وكسوة والله شكل انترست بيقول هذا صار الله jooga talaan bixinaya maanta ku horo talaan maan bixinay waxa waalidii waa habla aan wali guursan ee hadeer guur u sii socdaan anigu kamid ahayo joojiya adar macaan aakhirina xorolay noqonaynaa salaadiina tukada shantiina salaad tukada soonkiina iyo wixii hagaajista maca salaam aakhirina inagu soconaa waa maxay gogosha la isku guursanayaa waa sidee waa la istafirayaa toos oo cad kuma qabin oo cad ma jirto abti macay anigu kullu qof ana go'aan baad maanta qaatay iqbaalay gardarada jooji ii nabadgeli guurkayga ii nabadgeli walaali macaanay wakaas waxa weeyaan wala sheekada كذا سكون والله wax laga naxo in waxa wanaagsan la keeno sharci gooniya walaalo raggan kii naagta qabiyan kii naag guursan sida loo garto la calaamadeeyay san xal ma ahe meel baa la isku mehertanay waa la istafiraya bab wayna fiiro la iska duubaa fiiriyada oo la iska duubi jiray aaway ma aragtay in meeli la tagi jiray waraaqayda saxiix jiray waxa dhacday maxamedow ilmahaygii imika 5 sano gaadhay 4 sano waxbaan baranayay luuqad baan baranayay neers baan baranayay noloshayda dhisanayay nin ma raadinin shukaansi ma raadin buuq ma raadin aniga ilmahaygaas isku faraxsanay hayo magaalo ii dhow deganaa horta negative dhac lagu siiyay isagii wuxuu yahay isagii caruurtiisii hayo sharci anigu markaa waxa aniga ilmahayga sharci janayfaan la siiyay hayo sharci baanu qaadanay aniga awlaadaydu waxaa dhacday markaan noloshaydii dhistay liisankii baabuurkan qaatay baabuur yar baan iibsaday oon iskaga soo xamaasho waayo gooriile iyo xamaalo ma haysto xamaalkii keliyihii baan ka burburay waxaa dhacday inaan aniga de waxa weeyaan bartanka boodo oon anigu liisankii diyaarsado oon anigu neers barto oon anigu maadartay nolosheedii usoo jeesto oon anigu ismaamulo oon anigu hawsheedii dhammaysto oon anigii de isku filnaado oon anigu de waxa weyn istaawadaba anaaba isjeclaaday nin jacaylkiisa maxaan uga baahanay marna ana halkan isku eego muraayad intaan istaago qalanjaa tahay show halkan adka qurux badan tahay show sidanaad u eekayd show kinaad ahayd anigaaba isku filnaadayba anigaaba isku filnaasho gaadhay haddaba jab wuxuu ka yaalaa inan baan jeclaanay wiilka anu ma jeclaanay isagaa jeclaaday 5 sano ayaan afka ka jaray la ima moodo qofkana dhowr iyo 30 la isma soo oranayo waad carmaleysay waad garoobaysay jiin baan galay habeenii maalin jiin baan iskaga jiraa bartanaan ka boodaayo wax baan bartaa noloshaydii Soomaali waan ka haray Soomaali ma dhex galo buuqooga ma dhex galo ilmahaygaas igaga filan iskuul buu ii galay marka 6 sano ilmihii ii gaadhay sana jir ayay tahay inantaydu 6 sano aaba may arag oo adeer may arag oo nin may arag oo cid Soomaaliya may arag oo qof Soomaali la hadlay may arag ma fahantay teeta waxa dhacday inaan anigii ما دركتي أن سكوفيل ناضو ومحبرته هذا بقى إن عربة وما دركتي سوريان وحسلا برنترنا وحسلا شقين ترني أيام أنت بدن حالة زي أنو شيء تشري سوما لذا حسلها بيلو يكوجو عيان بيلو يوحكوجو سميان بيلو ما ياس أورنتري
soomaali ma dhex geli jirna suuriyaanka iyo eritriyaanka iyo dadkaasaan saaxiib la ahaa waa gartay inaantani markaa waxay imika leedahay wiil suuriyaana oo fiican oo boqora oo salaadiisa tukada oo sooma oo salaado iimaan iyo shahaadba leh ayaan helay haye ilmahaygina 6 sano sanadkan 7 sano jaraysaa iyo iskuul bay galaysaa haye ilaa 5 sanana waxba aan baranayay waa gartay hadda wiilkii Afghanistaankii ayaan isu shukaansanaa guur buu ii sanbadhigtay inuu i guursaduu rabaa oon weliba awlaadna uba dhalin haddaan doono allah hadda maxaa lasu guursanayaa markaa maxaa xala ila taliya ma guursadaa mise waan iska daayaa walaal anigu waxaan ku leeyahay guurso walaal guurso ka maydha ninkii hore waad soo tabaacday hadda waad shaqaysatay indhabeelkii hore ma tihid guursaan ku leeyahay walaalo duulkana waan u tuuraya insha allah bila kariim 33 sano ayaad hadda joogtaa 34 sano in yar baa ka hadhay waqtigii khatar tahay iska guurso walaashay guursaan ku leeyahay walaalo guurso waqtigeyga oo danteed garada su'aashaan weydiiyay waxay tahay sababta kugu kaliftay inaan nin Suuriyaana guursato maxay tahay nin Soomaaliya mad weey waxay ugu tir walaalo nin Soomaaliya waan guursaday ilmahaas igaga dhalay 6 sano sanadkan 7 haye